Nailah Abu Jabba waa hooyo 39 sano jir ah oo haysata 4 wiil iyo hal gabar waana darawal taxi. Al-Muqtara Taxi waa magacay u dooratay xafiiskeeda gaarka ah kaas oo ay ka furatay qol yar oo gurigeeda ka tirsan si ay macaamiisha uga hesho dalabaadka safarkooda gudaha ee Mareykanka Gaza. Abu Jabba waa ardayad ka qalin jebisay jaamacadda waxayna ku takhasustay adeegga bulshada waana tababare dhanka horumarinta aadanaha. waxna mashruucan maciin biday kadib markii ay awoodi weysay inay ku shaqeyso takhasuskeeda marka loo eego xaaladaha nololeed ee si xumaanaya ee Mareykanka Gaza. xafiiskeeda yar ay u bixisay Al-Muqtara Taxi iyada oo ku sugan waxaa soo gaaray dalab kaga yimid mid kamid ah macaamiisheeda isla markiiba waxay u jihaysatay dhanka iyo halka ay joogto ruuxii la soo xiriirtay si ay u geyso meesha ay rabto. hirgelinta fikradda ah in la furo xafiiska taxiga waxay ku taamaysay muddo dhowr bil ah kadib markii ay fursad shaqo ku weysay wixii ay soo baratay. baahida joogtada ah ee mashruucan oo aan ugu talagalay haweenka iyo carruurta oo kaliya ayaa igu kalifay inaan ku hirgeliyo fikraddan si degdeg ah ayay tiri. waxay tilmaamtay in mashruuceeda uu u wanaagsan yahay haweenka ku nool Mareykanka Gaza balse aysan in badan oo ka mid ah jeclaysan fikraddeeda taas oo ay xiiseeyaan inay raacaan ragga taksiilayaasha ah. waxay tilmaamtay in bulshada Falastiiniyiinta ay xirfadan u haystaan in ragga uunay gaar u tahay balse haweeneyda Falastiiniga ah ay leedahay awood ku filan oo ay ku fuliso dhammaan shaqooyinka ay raggu qaban karaan. shakhsiyaad bulshada ka mid ah ayaa su'aalo ka weydiiyay hawsheeda balse waxay u aragto inaysan habboonayn ka jawaabidooda waxay uga falcelisaa dhoola caddeyn si ay niyad ahaan ugu muujiso shaqadan inay tahay mid ay ku faraxsan tahay qabashadeeda. xirfadeeda wadida taksiga intay ku guda jirto waxay la kulantaa caqabado badan oo ka dhigaya dabeecadda shaqadeeda mid adag. hawsheeda guriga kama maqna qabashadiisa mararka qaar balse waxaa ka taageera qoyskeeda oo caawiya si ay shaqadeeda u sii wadato. dhaqaalaha kaga soo xarooda hawsheeda waa mid yar oo aanan kaafin nolosha reerkeeda balse inta ay ka hesho ayaa daboola bixinta qaar ka mid ah baahiyaha maalinlaha ah ee reerka. si ay u hesho macaamiil badan waxay akoonno ka furatay baraha bulshada waxayna halkaa kula wadaagtaa saaxiibada ku xiran boogageeda baraha bulshada hawsheeda iyo qaabkay u shaqayso. waxay ku rajo weyn tahay inay ballaariso mashruuceeda oo hadda ku kooban hal guri kaas oo haween badan oo ku nool Mareykanka Gaza ay ka heli doonaan fursado shaqo. waxayna u aragtaa Nailah in mashruucan uu fursad fiican u yahay xalinta dhibaatada shaqo la'aanta haweenka si ay u taageeraan qoysaskooda.